السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال kusoo dhawaada Farjano Media. barnaamijkan waxaa kaga hadli doonaa warshadihii hilibka ee ku taalay Kismaayo. warshada hilibka ee magaalada Kismaayo waxaa la aasaasay sanadka markuu ahaa 1968. warshada waxa ay soo saari jirtay 3 milyan oo tan oo hilibka lo'da oo gasacdaysan. bishii waxay dhoofin jirtay 500 oo tan. warshada hilibka waxay ka mid ahayd ilaha dhaqaalaha gobolka Jubbada Hoose. tirada shaqaalaha ee ka howlgeli jiray waxaa lagu qiyaasaa in ka badan 650 oo iskugu jira rag iyo dumar. waxaa idin muuqda markan shaqaalihii oo hawshooda wata fayadhowrkii caafimaadka iyo maamulayaashii. markan waxaa la sameynayaa gasacdeyntii iyo diyaarintii hilibkii lo'da ahaa si loogu dhuufiyo dunida dacaladeeda. waxaa kaloo idin muuqda gabdhihii oo hays howleed wada si ay shaqadooda u gutaan. waxaa markan la marayaa qaybta kiimikada oo nadiifinta si bakteeriya looga dilo gasaclada. waxaa la sameynayaa in markan kartoonadii la diyaariyo oo la raseeyo. waa shaqaalihii ragga ahaa oo dhuufin diyaarinta wada kartoomihii si ay loo dhoofiyo. waxaa kaloo idin muuqda markan waa magaalada banaankeeda iyo webiga Jubba ee magaalada Kismaayo. daawadaha qiimaha lahow intaasi waxaa inoogu eeg barnaamijka oo aan kaga hadlaynay warshadii hilibka Kismaayo. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan Farjano Media, fadlan subscribe, like iyo share. waa xagiina waad ku mahadsan tahay daawashadiina. intaasi waxaa inoogu eeg barnaamijkeena kulanto dambe oo xiiso leh.